الرحيم kusoo dhawaada problem kan la yiraahdo visbas problem waxaan rabaa inaan ku xalliyo problemkan pseudocode iyo pseudocode iyo inaan u isticmaalo luqadda C++. problemka wuxuuna leeyahay marka hore waxaan nagala rabaa in aan shaashada kusoo daawacno number 1 ilaa numberka 20aad markasta oo numberka 3 u qaybsamana reminderka haddii uu 0 noqdo tan numberkaas soo daawici lahaa waxaan soo daawacaa bedelkiisa vis sidoo kale numberka haddii uu 5 markii loo qaybiyo reminderka 0 uu noqdo waxaan soo daawacaa bas haddii numberka 3 uu qaybsamo tusaale ahaan oo kale numberka 15aad 5 uu qaybsamo intaan soo daawici lahaa marna vis marna bas hal mar isku wada qabanaa markaas waxaan soo daawacaa vis bas haddii numberka uu qaybsamo waayo 3 5 uu qaybsamo waayo waxaan soo daawacaa numberka pseudocode-kiisa wuxuu noqonaa marka koowaad waxaan sameysanaa number counter ah oo 1 ka bilaabanayo soconayo ilaa 20 counterka marka koowaad waana ku shubtay 1 oo ila mid yahay dhahay waxaana leeyahay numberka haddii uu 20 gaaro istaag soconin inta ka badan markastana 1 maadaama uu ka bilaabanayo ilaa 20 uu gaaro rabana programka markasta waxaan ku daraa hal increment by 1 increment counter by 1 aan leeyahay markastana waxaan rabaa inaan jacking ku sameeyo numberka markii loo qaybiyo numberadaan ugu talagalay 3 iyo 5 iyo labada number markii la isku dhufto oo 15 ah reminderka 0 miya markasta jacking ku sameeyo marka koowaad waxay noqonaysaa marka jacking kooda ku sameeyna waxa leeyahay numberka marka loo qaybiyo modulka waxay la mid tahay numberka marka loo qaybiyo 15 reminderka 0 miya hadda modulkan reminderka soo saara marka waxa leeyahay marka numberka marka loo qaybiyo reminderka 0 miya haddii 0 noqoto waxaan soo daawacaa vis bas sidoo kale waxaan leeyahay numberka marka loo qaybiyo haddii conditionkan false noqoto waxaan leeyahay haddana kana fiirinaa numberka marka loo qaybiyo 3 reminderka 0 miya 0 haddii noqoto waxaan soo daawacaa vis waa kana sidoo kale waxaan leeyahay kan haddii false noqoto tusaale ahaan oo kale numberka 1 markii loo qaybiyo 15 0 ma aha reminderka markii number 1 loo qaybiyo 3 0 ma aha reminderka waxaan leeyahay marka kan ku fiiri hadaan marka la ku fiiri numberka marka loo qaybiyo 5 reminderka 0 miya waa maya markaas kadib numberkaas waxaan leeyahay ls numberkaas isoo daabac sidiisa igu soo daabac tusaale ahaan oo kale numberka 3aad inta ku fiiri counterka marka istaala lagu daraa 3 markuu marayo inta fiiri 3 marka loo qaybiyo 15 maya 0 ma false inta mo 3 marka loo qaybiyo 3 reminderka maxaa waaye 0 3 oo qayb waxa ma soo haray maadaama 0 ay noqoto visan soo daabaca laakiin خلاص istaaga hadan uu ku laabanaa marka mid hadii true noqoto mashi kamilaayo uu ku laabanaa marka loo wadana number kale uu ku daraa hadda 4 imo 4 sideed uu soo daabacay maxaa yeelay 4 qayb 15 reminderka 0 ma aha 3 qayb reminderka 0 ma 5 qayb reminderka 0 ma numberka sideed uu soo daabacay laakiin 5 haday noqoto intana 0 ma ahan kana 0 ma ahan inta waxay noqonaysaa markaas 0 way noqonaysaa bas soo daawaca saas ku soconaysaa marka programka soo qorma marka la joogo C++ sida code-kan luqad ma aha laakiin marka luqadda programming lagu qoraayo soo qorma marka C++ waxaan u baahanahay number integer ah integer maxaa qaata maxaa ila number fraction aan la soconin waxa la lahaa integer wuxuu ka bilaabanaa 1 ilaa 20 ay ku jirtaa waxa la marka counter-kayga 1 wuxuu ka yariyaa counterkii ama leeyahay 20 markastana counterka hal ay ku dir 20 ay ku jirtaa jacking intaan ku sameynayo kala ku sameynaa laakiin way kala duwan yihiin kan syntax soo qormaa marka waxaan leeyahay marka numberka counterka marka loo qaybiyo modulka C++ ana loo qaataa marka loo qaybiyo 15 0 miya hadda tahay vis basan daawaca hadda ahna marka la fiirina 3 marka loo qaybiyo 0 miya vis isoo daawaca hadii ha noqoto haddana marka 5 loo qaybiyo 0 miya haddana noqoto bas soo daawac haddii kalena counter isoo daawac marka la ku laabo
marka programkan markii C++ lagu qorayo soo noqonaa si aad u aragtaan hal mar soo kacsanaa code block si aan u qoro codeka oo isoo kacaya oo isoo kacay waxaan tagaa file kadib waxaan leeyahay new waxaan leeyahay project markaan kadib waxaan dooranaa console application kadib go aan leeyahay kadib C++ aan dooranaa kadib project magaciisa qoraa waxaa waaye magaciisa vis pass soma kadib waxaan leeyahay next programkan hore uu jiray markaas uu leeyahay kii hore aan tirtiraa kan okay mar kale kadib waxaan leeyahay source kadib waxaan leeyahay double click aan menu ku dhahaa kadib waa ii furmay kadibna codeka aan qoraa waxaan leeyahay marka for int I meeshaan counter na dhigi karaa la egtahay 0 I less than or equal to 20 equal maxaa u isticmaalaa maxaa yeelay 20 way ku jirtaa markastana I hal igu dar kadib waxaan leeyahay marka checking ku sameey markasta if I module selo qoraasana loo qoraa soma haddii 15 markii loo qaybiyo 15 remainder-ka haddii uu 0 noqdo waxaan leeyahay waxaa isoo daawacdaas maxaa la daawacaya waxaa la daawacaa vis basoma kadibna waxaan leeyahay underline sidoo kale laakiin haddii tan false ay noqoto kan fiiri haddana lsf markii loo qaybiyo numberkan oo I ah 3 remainder-ka haddii 0 uu la mid noqdo maxaan daawacaa markaas cout waxay daawacdaa vis underline semicolon haddii tan ay false noqoto tan fiiri haddana lsf haddii ay markii loo qaybiyo 5 oo 0 noqdo waxay soo daawacdaa pass soma haddii kale intaan dhan haddii false noqoto isla numberka left asiga isoo daawac cout ayda isoo daawac intaas oo dhan haddii ay false noqdaan underline okay kadib waa dhameeyey hadda programkan had markuu I1 waaye 0 waa meeshaan khaldanta waana laga rabaa 1 waaye 1 ma u qaybsantaa 15 5 markii loo qaybiyo way u qayb laakiin remainder-ka 0 ma aha 5 1 u qaybiyo 15 inta false waaye inta mo 1 u qaybiyo 3 0 ma aha inta mo hal u qaybiyo 5 0 ma aha ana markii 1 sideeda u daawaca hay 5 markay taa ka hor hal u qaybiyo 15 0 ma aha hal u qaybiyo يعني 5 u qaybiyo 3 0 ma aha 5 u qaybiyo 5 0 waa baas soo daawaca ay markay 3 mareysana 1 ku bilaabana 2 3 markasta waxa waaye 1 ku dareeyay soo noqonaa marka programka waxaan leeyahay run build and run waa kana waana daawacay 2 daawacay markii 3 mareysay beddelkeeda muxuu daawacay vis 5 markay mareysay muxuu daawacay pass 6 markay mareysay vis maxay 6 maxaa loo daawacay mataqaana 6 intii mo 6 markii loo qaybiyo 3 remainder ka meeqa waa 0 sidaas darteed waxaa la daawacay vis هي مركز 15 مريسنة 15 مركز مريسنة ka yartahay 20 صح intuu maana 15 markii loo qabay 15 meeqa waay 0 waa maxaa marka vis pass waa kana 14 15 beddelkeeda vis pass aa daawacay 16 sideeda 17 sideeda la daa programka markii sidaas oo shaqeynaa aad waa mahadsantiin waxaa idin leeyahay fi amaan illah